Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ku soo dhowaada daawadayaal qaybtii afraad ee qisadii Xajaaj bin Yuusuf iyo wiilkii yaraa ee caqliga badnaa. Waxay noo maraysay Xajaaj oo su'aalo badan ka weydiinaya wiilka yar aayadaha Qur'aanka Kariimka ah. Haatan waxaan sii ambaqaadi doonaa su'aalihii Xajaaj. Xajaaj ayaa weydiiyey wiilka yar, wiil yahow waxaad ii sheegtaa qof laga abuuray hawada iyo qof lagu badbaadiyey hawo iyo sidoo kale ummad hawo ama dabayl lagu dilay. Wiilkii yaraa ayaa ku jawaabay, qofka hawo laga abuuray waa Nebi Ciise calayhi salaam oo neef baa laga abuuray. Qofka hawada lagu badbaadiyena waa Nebi Sulaymaan calayhi salaam oo hawada ayaa loogu gargaari jiray oo uu adeegsan jiray. Qolada hawada ama dabaysha lagu halaagayna waa reer Caad markii nebigii Alle subxaanahu wa tacaala u soo diray ay beeniyeen. Xajaaj ayaa yidhi, waxaad ii sheegtaa shay geed laga abuuray iyo ruux geed lagu dilay iyo sidoo kale ruux geed lagu badbaadiyey. Wiilkii yaraa ayaa ugu jawaabay, shayga geedka laga abuuray waa ushii Nebi Muuse calayhi salaam markay abeesada isku beddeshay. Waxayna ahayd markii hore ul, waxayse noqotay abeeso. Ruuxa geedka lagu badbaadiyena waxa uu ahaa Nebi Nuux calayhi salaam markii ay dhulka iyo cirkaba biyo xireen. Waxaa Alle subxaanahu wa tacaala ku badbaadiyey doon ka samaysan geed. Ruuxa geedka lagu dilayna waa Nebi Sakariya calayhi salaam oo qoomkii loo soo diray ee reer banu Israa'iil ay ku dileen. Xajaaj ayaa yidhi, waxaad ii sheegtaa ruux biyo laga abuuray, ruux biyo dhexdooda lagu badbaadiyey iyo ruux biyo lagu halaagay. Wiilkii yaraa ayaa ugu jawaabay, waxaa biyo laga abuuray Nebi Aadam calayhi salaam, waxaana biyo lagu badbaadiyey Nebi Muuse calayhi salaam, waxaase biyo lagu halaagay Fircoon iyo qoomkiisii. Xajaaj ayaa weydiiyey su'aal kale, waxa uuna yidhi, waxaad ii sheegtaa cid naar ama dab laga abuuray iyo qof naar laga badbaadiyey. Wiilkii yaraa ayaa ugu jawaabay, waxaa naar laga abuuray Ibliis, waxaase dab ama naar laga badbaadiyey Nebi Ibraahim calayhi salaam markii qoomkiisii ku tuureen. Xajaaj ayaa su'aal kale ku celiyey, waxa uuna yidhi, waxaad ii sheegtaa webiyada jannada iyo tiradoodu intay tahay. Wiilkii yaraa ayaa ugu jawaabay, webiyada jannada mara aad bay u tiro badan yihiin oo Ilaahay uunbaa tiradooda garanaya. Sow Alle ma dhihin, jannada waxaa ku jira webiyo aan biyahoodu isbeddelayn, kuwo caano aan dhadhankoodu isbeddelayn, iyo kuwo webiyo qamri ah oo qofka cabaa uu dhadhansanayo, iyo webiyaal malab ah oo saafi ah. Webiyaasha dhammaantood waxay ka soo burqadaan hal meel, iyagoo caano, qamri, biyo iyo malab isla ah, iskumana darsamaan. Mid la mid ah kuwaas oo hal meel ka wada yimaada iskuna darsamayn, adduunyada ayaa laga helaa oo waa madaxa qofka, waayo webiyada jannada qaar dhadhankoodu waa macaan, qaarna waa qaraar, halka qaar kalena ay yihiin dhanaan. Madaxa qofkana waxaa ka yimaada candhuuf, dhadhankeeduna waa macaan. Ilinta qofka ka timaadana waa dhanaan, halka dhukayga qofka dhegta ka yimaadana uu yahay qaraar. Dhammaantoodna waxay ka wada yimaadaan madaxa qofka oo isku meel ah, haddana iskuma darsamaan. Xajaaj ayaa weydiiyey, ahlu jannuhu way cabaan, wayna cunaan cuntooyin kala nooc ah, mana saxaroodaan, ee waxaad ii sheegtaa ruux dunida guudkeeda jooga oo inta uu cuno, cabo, haddana aan saxaroon, sida ahlu jannaha oo kale. Wiilkii ayaa ugu jawaabay, haa, waa laga helaa dunida guudkeeda oo waa ilmaha yar ee uurka hooyada ku jira. Ilmahaasi yari waa cabaa, waana cunaa, haddana ma saxaroodo. Xajaaj ayaa su'aal kale weydiiyey, waxa uuna yidhi, waxaad ii sheegtaa dhiiggii ugu horreeyey ee dunida guudkeeda ku dhibca markii Aadam calayhi salaam la abuuray kadib. Wiilkii ayaa ku jawaabay, waxa uu ahaa dhiiggaasi dhiiggii hooyadeenna Xawaa ee xaydka ahaa, isagaana ugu horreeyey dhiig dunida guudkeeda ku dhibca. Xajaaj ayaa yidhi, wiilyahow bal caqliga bini'aadamka wax iiga sheeg, iimaanka wax iiga sheeg, xishoodka wax iiga sheeg, deeqsinimada sidoo kale wax iiga sheeg, geesinimada wax iiga sheeg, karaamada iyo sharafkana wax iiga sheeg, sidoo kale shahwada iyo damcana wax iiga sheeg. Wiilkii ayaa ku jawaabay, haddii aan wax kaaga sheego, caqliga Ilaahay 10 buu u qaybiyey, 9 ragga ayaa la siiyey, halna dumarka ayaa la siiyey. Iimaanka Ilaahay 10 buu u qaybiyey, 9 reer Yaman baa la siiyey, halna adduunka kale ayaa loo qaybiyey. Xishoodka Ilaahay 10 buu u qaybiyey, 9 dumarka ayaa la siiyey, halna ragga ayaa la siiyey. Deeqsinimada Ilaahay wuxuu u qaybiyey 10, 9 ragga ayaa la siiyey, halna dumarka ayaa la siiyey. Geesinimada sidoo kale 10 ayaa Alle u qaybiyey, 9 carab baa la siiyey, halna dunida kale oo dhan baa loo qaybiyey. Shahwada ama damaca 10 ayaa loo qaybiyey, 9 dumarka ayaa la siiyey, halna ragga ayaa la siiyey. Xajaaj ayaa ku yidhi, waxaad ii sheegtaa wax sanadkii mar kugu waajib ah, iyo wax noloshaada oo dhan mar kugu waajib ah, iyo waxa iminka agtaada kugu dhow. Wiilkii ayaa ku jawaabay, waxa sanadkii mar kugu waajib ah waa soonka,
waxa noloshaada oo dhan markuu waajib ahna waa inaad xajiso beydka alle. waxa iminka aniga iigu dhow waa geeri ama inaan aakhira tago oo aan dhinto. Xajaaj ayaa weydiiyey su'aal kale, waxa uuna yidhi, waxaad wax iiga sheegtaa dumarka. Wiilkii ayaa ku jawaabay, Xajaajoo weli waan yarahay oo dumar maanan guursanin, laakiin waxaan ka aqaan ayaan kaaga sheegi karaa. Haddii aad hesho gabar 10 jir ah, waxaad haysataa xuurul cayn ee ha sii dayn. Haddii aad hesho gabar 20 jir ah, waxaad haysataa janno iyo barwaaqo iyo qurux la daawado. Xajaaj ayaa qosol dheer la dhacay, kadibna wuxuu sii watay su'aalihii. waxa uuna yidhi, waxaad ii sheegtaa qofkii ugu horreeyey ee tiriyey gabay iyo ciddii u jawaabtay gabaygaasi. Wiilkii ayaa ku jawaabay, waxa uu ahaa qofkii ugu horreeyey ee gabay ama shicir tiriya, Nebi Aadam calayhi salaam. gabaygaasi oo ahaa calaacal ugu barordiiqayay wiilkiisii uu dilay walaalkii, waxaana u jawaabay Ibliis oo taagnaa meel aan sidaasi uga fogayn. Xajaaj ayaa yidhi, subxaan allah, ilaahay ayaa xumaan ka fog, qofkuu doono ayuu xigmad iyo cilmi siiyaa. ma arkin adiga wiil cilmi iyo caqli kaa garasho badan. wiil yahow, cilmigaagii faraha badnaa waa noogu deeqday, ee waxaa qasab ah inaan ku karaamayno oo aan ku wanaajinno. waxaan ku siinaynaa 1000 diinaar. waxaan kaloo ku siinaynaa dhar qurxoon, seef, gabar iyo weliba faras. Xajaaj oo ayna weli ka go'in damicii ahaa inuu dilo wiilka yar ayaa hor dhigay halxiraalahan. waxa uuna intuu hoos isugu faqay yidhi, haddii faraska uu qaato waa iga badbaadayaa, laakiin inta kale haddii uu qaato waan dilayaa. Xajaaj ayaa ku yidhi, wiil yahow, kala dooro alaabtan aan hadiyad ahaan kugu keenay. wiilkii yaraa intii uu kala dooranayay ayuu gabadhii oo waxa la kala dooranayo ku jirtay tiri, aniga i qaado wiil yahow. maxay tarayaan mara qurxoon, lacag, seef iyo faras? anigaa kaga wanaagsan, ee aniga i qaado, waxaan kuu noqonayaa gabar raalliyad ah. wiilkii ayaa yidhi, gabar yahay dan kaamilihi ee iska kiidaa. Xajaaj ayaa dareemay sanqashadii iyo iljebintii gabadha oo ku yidhi, maad isku xishootid gabar yahay intaad wiilka yar u iljebinayso. markaas buu Xajaaj gabay u tiriyey gabadhii. wiilkii ayaa yidhi, Xajaaj, haddii aad i kala dooransiiso alaabtan 1000 diinaar, gabar, seef iyo faras, anigu waxaan qaadan lahaa faraska. laakiin adiga haddii aad dheecaan xalaal ah ka dhalatay oo aad tahay nin wanaagsan, waad i wada siinaysaa. Xajaaj ayaa ku jawaabay, wada qaado dhammaantood, ilaahay kuuma barakeeye. wiilkii ayaa yidhi isna, waan kaa guddoomay alaabtaasi, ee adiga ilaahay mid ka dambaysa kuma siiyo. adiga iyo anigana ilaahay mar dambe nama kulansiiyo. markii wiilkii yaraa alaabtii oo dhan isku qaatay, ayuu yidhi, Xajaajow, xaggee baan ka baxaa oo aan maraa? Xajaaj ayaa ku jawaabay, waxaad ka baxdaa iriddaasi, intuu u tilmaamay albaab aan lahayn cid dhibaataysa. Xajaaj ayaa dadkii kaag dhowaa ku yidhaahdeen, maxaad ugu tilmaamtay albaabka uu ku nabadgelayo, ee aad ugu tilmaami weysay albaabka aan ku xirayna haddii uu ka baxo? Xajaaj ayaa ugu dambayntii ku jawaabay, waxaan ugu tilmaami waayey waa uu ila tastay. qofka haddii uu kula tastana waa uu ku aaminay, markaasi ma habboona in la khiyaano. sidaas ayuu wiilkii yaraa ku badbaaday oo uu kaga baxay qasrigii Xajaaj isagoo wata alaabtii oo dhan.